arrinta ka soo yeerta dhawaaqa Nairobi ka soo yeero xildhibaanada is aruursaday runtii guud ahaan ummadda Soomaaliyeed kuma aynan farxin waxayna tahay is aruursigaas mid hadda xilli ku haboon aan jirin ku aaday hadda xukuumadan hadda jirtana buuq uma baahno iyada dhamaa waxay jirtaa ma taqaanaa muddo hal bil iyo 18 maalmood ay joogtaa markii la ansixiyo kadib sidaa darteed marka arintaasi waa arin dhaawacaysa isbedelkii siyaasadeed iyo guulihii ay gaartay ummadda Soomaaliyeed oo ku saabsanaa rabitaanka shacabka iyo baarlamaanka guud ahaan oo isbedel muddo lagu soo jiray oo lagama maarmaan ahaa meesha ma taqaanaa ka dhacay oo la raba in markaan buuqii muddadii 2 sano ugu dambeysay lagu soo jiray dalkan tiihii iyo dhibaatadii badneed iyo isriix siyaasadeed oo badnay hadda uma baahna in mid kale la abuuro runtii dalkaanina wuxuu leeyahay cadow badan oo isugu jira koox diimeedyo siyaasadaysan oo iyo kuwa hubaysan oo xaq jiro oo qora caaradiisa wax ku raba marka waxa loo yaqaano sectarian ayaa dhibaato badan dalkan muddo ku soo hayay marka hadee waxaan leeyahay marka baarlamaankaas ama xubnaha meesha isugu tagay is aruursigaasu waa mid qaldan waa mid aan ummadda Soomaaliyeed aynan aqbalayn waana mid hatta hadduu dhacayo dalka gudihiisa inuu ka dhaciyay ahayd Muqdisho maanta hoteelo badan ay leedahay relax ay leedahay marka aad iyo aadaan arintaas ma taqaanaa oo cambaareeyna mana ahan mid ku haboon waqtigan saasaan aan ma taqaanaa uga jawaabi lahaa arintaas wagaag mudane salaad marka la fiiriyo arrimo badan ayay dadku ka siman yihiin ama siyaasiyiin ha noqdaan ama dadka shacabka ah waxaan arrimahaas ay yihiin xilliga lagu soo beegay iyo xilliga dawladdu dhisan tahay iyo dadku waxa ay filan karaan iyo shacabka laftiisa oo qaba in dawladooda lala xisaabtami karo laakiin wax walba mansabkooda iyo munaasabadooda lala fiiriyo marka arrimahaas la fiiriyo sidaad u aragtaa siyaasiyahan adigu markaan taariikhda horta wax yar dib ugu laabto dalkaani wuxuu soo maray dhibaatooyin fara badan dawladnimada Soomaaliya hadda meesha ay soo gaartana dad badanaa ku dhintay dad badanaa ma taqaanaa soo gaarsiiyay juhdi badanaa ku baxay marka waxaan ummadda Soomaaliyeed meeshay hadda taagan tahay inayna dib uga ma aqbalayso inay dib uga naqato tala ahaan marka aniga waxaan ku tala bixi lahaa in fursad la siiyo dawladdan cusub oo madaxda ka yahay khayre xukuumadan khayre oo madaxda ka yahay oo ra'iisul wasaarahan cusub oo hogaaminaya runtii markii la dhageysado waxyaabo badan oo la taaba kara ay carabka ku dhifatay waxyaabaha dawladdan laga rabana waxa kamida inay doorashooyinka ay sameeyso inay horta amniga sugto labo inay ma taqaanaa doorashooyinkii sharciga doorashooyinka ay meel mariso dastuurka inay ma taqaanaa dhameystirto dawlad goboleedyadii inay ma taqaanaa u bedesho dawlad goboleedyo sharciya oo dastuuriya oo markaasi haddana isla markaasna khayraadkii sidii loo qaybsan lahaa ay meel mariso waxyaabahaasa dawladdan looga baahan yahay marka baarlamaanka waxaan aniga ku tali lahaa inay shuruucdaas ay ka shaqeeyaan ay waajibaadkooda qabsadaan xukuumadana ay u fududeeyaan howlaheeda xukuumaduna ay howlahaasi ay ma taqaanaa diiradda saarto maanta marka 2 sano ugu horeysaba waxaa la rabaa in looga faraxasho dastuurkii oo dhameystiran khayraadkii oo la yaqaano sidii loo qaybsaayo ay caddahay iyo isla markaasi dawlad goboleedyadii oo dastuuriyaho shuruucda waxay xaq u leeyihiin iyo waxay ayna xaq u lahayn kala yaqaano dawladda wagaag aad buu mahadsan yahay mudane siyaasi salaad cali jalle oo stuudiyaha magaalada Muqdisho aan ka sheekaysanaynay